السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada channelkana maanta waxaan rabnaa inaan sameyno kareemkii wajiga. Saa u jeedin waxaa saytu waa kareemkii wajiga. Soo marka waxaan ka sameynaynaa qaabkan u sameynayno aan isla daawano. ugu horeyntii meeshan waxaan ku haysan waxaa waaye bocor aan biyo ku soo karkariyay. Then waxaan rabaa inaan ka isticmaalo hal qaado kaliya asaga dhan ma rabo inaan isticmaalo. Haddii ay allergy kugu yahay waxaa ku bedelan kartaa viazi ama barandho. Hal xabo oo biyo ku soo karaysa ayaa ku anfacayo. Anyway marka waxaan rabaa wax zaid ah kama rabi wax yar leen ka rabaa. Waxaa kaloo ku dar waxaa waaye aan soo shiiday bariis iyo loos asagana way tan leeyahay magtay lagama warqamoye. Bariis iyo loos iyo pasta aan isku soo shiiday. Then nafaqaantaas ku weyn ma jirto. Anyway waxaan rabnaa asagana inaan ku darno 3 qaade laakiin qiyaastaadi waaye intaadi qiyaastaadi ku darsanaysa. Then xitaa haddii aad badisid xitaa fridge-ka gashanaysa soo kaama bahalaawayba. Anyway waxaa kaloo ku darrabno waxaa waaye caano booro milk powder asagana ayadan wax badan wax yar ma ahan because caano boorada ayadan waxay soo saaraysa black spot oo wajiga ku jiro oo wasaqda yar wajiga ku jirto oo madowga way ka soo saaraysa xitaa caano boorahanayt iyo timir kaliya intaasiit haddii aad marsatid maasha Allah weeyaan. Anyway waxaa kaloo ku darro waxaa waaye rose water haddii aad tahay waji dry face dadka wajiga qalalka ku jira haddii aad ku jirtay umadaasayta waxaad yaqasiisita ku darsanin kaligiisa marso maxaa yeelay horay dry kaaga sii dhiga laakiin dadka aanay oily face ay ku darsan karaan. Laakiin morning kaligiisa haddii aad marsatid early in the morning haddii aad kaligiisa marsatid oo ku anfaca. Anyway waxaa kaloo ku darrabno waxaa waaye malabkana sidoo kale dadka aanay oily face u yar fiican yahay dadka aanay dry face asagaba dry horay dry ugu sii dhiga. So waxaan kaloo ku darrabno waxaa waaye vitamin E capsule ayagana dadka aanay oily face maahan laakiin waa ku darsan kartaa laakiin dadka dry face u fiican tahay. So marka waxaan rabnaa inaan ku darno 4 xabo aan rabo inaan ku daro kadib biyo leen ku daro wax kale kuma daraayo. Anytime waa marsan kartaa kareem waaye marka quraacada karinaysid lunch time super time duhurkii ama 4 saacadii inta marsatid aad la seexanaysa kadib marka soo kacdi adiga iska dareemi doono waxaad marsatay sida hore ahayd iyo hadda. Anyway markaan biyo ku darno isku yar qasina biyaan waxay leeyihiin caano booro wax saasay ma lahan. Anyway please channelka hadaa ku cusub tahay nagu soo biir ka mid noqo asxaabteena. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka heli doontiin comment-ina aan idinku arki doono insha Allah. Kaliya marka aad isticmaashid ayaad comment ka soo bixin kartaa. Anyway dadka wajiga maamooyinka wajiga guduudka qabo inay wajiga dhiig fadhiyaan camal loo maleynayo oo joogaan wadan kuleel ay isticmaali karaan body scrub kaasi charcoal xul laga sameeyay. Maxaa yeelay haddaa marsatid kolley natiijo ka keeni doonta. waji guduudku yar fiican yahay iyo wajiganayt dhabanahanayt ka noqdeen black. So waxaas kulli dhamaantood waa qaada isku tijaabi xabadan oo kaliya dhameyso. Then waxaan ka rabaa marka natiijada haddaad ku fiicnaan weysid channelkaygan subscribe iska saar midkaas aad marsanaysa kadib kareemkanayta aan qasay oo white-ga kareemkaas aad marsani then adiga iska dareemi doono marka sida ahayd iyo sida aan noqonaysid.
akasa charcoal way dhuxula laga sameeyay faa'iidooyin fara badan ku jiro marka laga gaaro asagana kulli waa qiimo jaban meel walba nagu yeela waxa kale oo marsanaysaa face mask saddexdan shay kaliya hadaa marsatid wajigaada wax badan waa ka dareemaysaa wallahi face mask waxa way kii la fiiqay waaye marka face mask da super waa midkaan aan ku arkay aniga mid kale kuwan kale dad ma anfacaan laakiin midkaan aad dad u anfacay anyway marka waxaan idinkaga tagayaa kareemka sayta la tijaabiyo la marsado dhamaantood la isku fiiriyo channelkan hadii aad ku cusub tahay ku soo biir asxaabta kamid noqo midkan kalena waxa way vitamin E capsule night time oo marso night care cream insha Allah